السلام عليكم. عادي أدبان وفرح سنة هاي مقالة نيروبي إنان كوي معدو حول عن مقالة نيو إيست أفريقيا بوقباهن هدان غير خاطو من هاي وأنا كفرح سنة هاي إن قليه إن صحافة دواد ماشا وذا تشوكتان waxaan ku tala jiraa in aan aniga iyo qoliyo Addis Ababa iyo Djibouti ka iman doon Cali Ciise Cabdi Maxamed Buraale iyo haddii alla idmo xamar waftiga jooga insha Allah waxaan naga soo biiraan oo aan markaa dalalkan East Africa dhowr meelood aan tagno magaaladana hadda joognay iyo Uganda iyo Mozambique iyo meelaha waxaan ku rajaynaynaa inaan wada gaadhno hawshaanu u soconaan oo malayn maayo in la idin sharxay inaad u baahan tihiin hadaad wax su'aalaha qabtaan diyaar baan u ahay markaa inaan idin Professor waxaad soo martay dhulul fara badan oo waliba qaaradda Yurub iyo waliba Afrika dhammaan wadamada soo martay maxaa kaaga soo qabsoomay meesha ugu horeysa tala hadii hawshu nooga dhamaatay oo dalka Ethiopia aan tagnay waa uu la socotaan meelaha war la qaba xiisama leh dalka Ethiopia waxaanu aragnay dawladdaas xubno ka tirsan ka bacdina waxa casumaad noo soo fidisay jaaliyada Khaatumo ee Norway degan oo ballamo dawladda Norway nooga qabatay wasaaradda arrimaha dibadda iyo NGO yaal nasib daro Cali Ciise iyo maraacin ana tagay hawlo kale ku mashquulay buu ka bixi waayay meeshaasna wasaaradda waa is aragnay saan wada ognay Khaatumo waa maamul cusub oo aan hore u jirin warkiisana lahayn arrimaha Soomaaliya waxaad moodaa sida guud waa looga warwarhayaa maamulada hore u jirayna wararkooda waa la hayaa annagu waxa uu noogu weynaa markaa inaanu adduunka gaadhsiino dadka ku nool Sool Sanaag iyo Cayn inay tashadeen inay shir weyn ku qabsadeen magaalada taariikhiga Talaax ayna u arkeen dantoodu inay ku jirto maamulka Khaatumo inay sameystaan kaas oo maanu adduunka gaarsiinaynay wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway aad bay noo soo dhaweysay inkastoo su'aalo badan ay qabtay iyo warar xumo tashiil badan baa iska jira oo warar badan ka geeyay Khaatumo iyo inay spoilers waxa lagu magacaabo ama cid wax duminaysa ay yihiin markii dambe garowshiyo badan bayna siiyeen NGO yaal ay ka mid yihiin Norwegian People's Aid MPA oo NGO qore aanu malaynayaa aageena inuu joogo iyo kuwa kale oo qudadoodu raba hadda inay yimaadaan Norway markaan aan tagayna waxaan gaaray dalka Ingiriiska shirka weyn ee London lagu qabanay bisha 23 buu ahaa muhiimada ugu weyn annagu ma aanan tagin shirka laakiin warkiisa waa haynay dadkii uuna hawlaha wadwadayna waa is aragnay arinta ugu weyn aan meesha u tagnay waxa ay jaaliyada weyn baa ku nool dalka Ingiriiska magaalada marka London iyo magaalada Birmingham ba waa tagnay shirar waaweyn oo saad fiidiyada ugalaba socoteen idinku yaa meesha lagu qabtay runtiina aad bay noo idila badan noo gelisay dadkii waxaad moodaa meel la joogaba in la khaatumeysan yahay ma uunaha dadka Soomaaliya Sanaag iyo Cayn u dhashay ummadda Soomaalida xoogeedu wax meel la filaya aan ahayn xoogeedu aad bay u taageersan yihiin Khaatumo aad baa loo soo dhaweeyay aad baa loogu hanweeyay aad baa loo filayaa inay dowrkooda xaq ah ka qaadan doonaan isukaanka Soomaaliya iyo nabad ka dhalinta iyo qarankii ummadda Soomaaliyeed in dib loo soo celiyo iyana markaan dalka Ingiriiska tagay waxaan gaaray Denmark isna jaaliyada oo meelo badan ka timid Denmark ta qurmaahe Copenhagen qurmaahe Denmark gudihiisa dalka Sweden Norway Germanka meelo badan baa laga yimi xaflada aad iyo aad u fiican baa halka ka dhacaysa aad la socotaan dad badan oo aan Soomaaliya Sanaag iyo Cayn ahayn baa yimi oo u yimi runtii bogaadin duco intaba waxaan markaa jecelahay inaan kulli halkan uga wada gudbiyo gidigoodba walaalihii jira noqda aad baan ugu faraxsanahay taakulada iyo
muxuu ahaa ducada aad mar walba nala aad garab joogtaan. haddaan yurub ka soo dhammaystayna magaalada Addis Ababa hadda 3 casho soo joogay iyana hawlo uu khaatumo saad ka warhaysan halkaa waxaa jooga cali ciise cabdi, maxamed buraale, maxamed saciid cumar oo ka tirsanaa G6 haddana G10 ah. hawlahaasun baanu meesha u tagnay inkastoo telefoonada aanu dhibaatooyin badan kala kulanayna kulley dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba hawlo badan oo wada tashi iyo iswaraysi aanu halkaana aan ku soo qabsan. tagtay Ingiriiska, dalka Ingiriiska markaana madaxdii dawladda Soomaalida ugu sirsareysay waxay wada joogeen dalka Ingiriiska. wax wada hadal ama shawraad arinta ka yeelatay ma jirtaa? annagu meeshu ma ahayn meel aanu arrimaha khaatumo iyo madaxda aanu runtii ku mashquulin arrimaha kan. waxaan ogeyn madaxdaas in ay dalka ku soo wada noqonayaan. qaar aanu telefoonna ku wada hadlay waa jiraan, laakiin wafdi ballaadhan oo madaxweyne ka mid yahay oo golihii sare ee muxuu ahaa dhaqanku uu ka mid yahay, wasiir ka mid tahay yaa jooga xamar. warka khaatumana aad iyo aad bay ula socdaan. hawlahaasuna uun maaha arrinta tiraafka ee hawlo kaloo badan baa noo yaala. dadkaa waxaa loo leynayaa ee reerbaadiyihii ceelashii looga horjoogaa ee xoolooda ka waraabsan lahayn waa midnimada Soomaalida, waa calanka Soomaalida. marka ummadda Soomaalidu meelay joogtaba waa ognahay dareenkay leeyihiin. waxaanu annagu ka codsanaynaa kana rajaynaynaa madaxweynaha Soomaalida inuu dareenka ummadda Soomaalidu ay qabto oo hiil kaleba ugama baahinay. haddii ay tahay warnaku ma annaka tashanay ummadayadii baa tashatay oo wax xaqayagii aanu rabnaa inaanu yeelano waa ognahay meelaha laga haysaysto. laakiin waxaan rajaynayaa madaxweynuhu inuu xikmad iyo caqli isticmaalo oo arinta uu dedejiyo uusan kaga bakhaylin dadkaas Soomaaliya Sanaag iyo Cayn waxa ay xaq u leeyihiin inay helaan. Professor Diin Cabdullaahi Maxamed Diin Xidig waxaan ka socdaa shabakada lascano.com waxaad sheegtay inaad muddo 3 casho joogtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya. horena waxaan u nimanka dalka soo laabateen inaad magaaladaas muddo joogteen. dawladda Itoobiya waa dawlad ballaaran oo East Africa iyo Soomaaliya saameyn ballaaran ku leh. waa sidee xiriirka u dhaxeeya maamulka khaatumo iyo dawladda Itoobiya federaalka? maamulka aad iyo aad baa nalooga soo dhaweeyay. ismaamulka Soomaaliyeed iyo dawladda dhaxaba aad baa naloo soo dhaweeyay. haddana wada hadallo noo bilaabmay oo noo socon doonaana waa jiraan. waxaanu aad iyo aad ugu rajo weynahay dawladda Itoobiya saad sheegtay waa dawlad geeska Afrika oo dhan hadda awood ku leh ballaadhan cidina ayan indhaha ka qarsanayn. arrimaha Soomaalidana door weyn ku leh. waxaanu jecelahay ama ha noqoto khaatumo ama ha noqoto arrimaha Soomaalidaba dawladda inaanu wada tashi joogta iyo iswaraysi joogta ka yeelano. haddana arrimo meel fiican bay noo marayaan. arrimihii gudaha ee maamulka Khaatumo State of Soomaaliya gaar ahaan dhismihii golayaasha degmooyinka ilaa hadda maxaa hortaagan inta weelkaaga? taa idinkaaba iga waran anigu dibaddan ka imay idinkaaba dalkii jooga. waxaanu oran lahaa hawshaas hawl culus weey. hawshaas in maamulku uu dhismo oo golaha madaxweynayaasha ama golaha madaxtooyada ilaa xaafadaha in maamulkaas uu gaadho yaa lagu rajo weyn yahay. wixiina gacanta lagu hayaa waa la lafagurayaa si miisaaman oo isu dheelitiran baan ku rajo weynahay maamulkan inuu aad uga gedisnaado maamulada wadanka ka dhisan oo meel walba uu gaadho ama xagga security ha noqoto ama xagga maamulka ha noqoto ama xagga cashuur ururinta ha noqoto intaba oo meesha loo socdaana ay tahay adeegayaasha ay ummadaas ay u baahan tahay xag waxbarasho, xag caafimaad, xag biyo, xag nabadgelyo intaba in lagu tuntunsado oo la dhiso. ugu dambeyntii doctor dawladda Ingiriiska oo hadda Soomaalida shir u qabatay isla markaana aad ku sugnaydeen intii shirkaas socday deeqda ugu badan la siisa Soomaaliya ama ku bixisa deeqaha ugu badan 70% gobolada waqooyi ama maamulka Soomaaliland oo hadda gobolada ACC xasuub ka wada arrinta ma kala hadasheen dawladda Ingiriiska wax wada hadal ma ka yeelatay? arrinta dawladda Ingiriiska arrinta ugu weyneyd ee hadda ka socotay maamulka shirkaas oo ahaa intaan khaatumo la sameyn iyo hadda iyo beriba
iyo waqtiga soo socda oo dhan dowladda ingiriiska arrimaha waa lagala hadlayaa ballaanana waaba jiraan annaku duulimaad kuma nihin waxay siinayaan hadday hargeysa iyo burco iyo berber siinayaan ama beledweyne siiyaan ama kismaayo siiyaan annaku qolana odhan mayno dadkaa waxa siinina annaku sidayadaanu wixii dalabaad aanu qabnay iyakaanu ugu gudbinay wayna og yihiin shalaa darhaad baa ugu dambaysay dowladda safaaradda ingiriiska rag ka socda waxaanu kula shiray magaalada Addis Ababa waxa ugu weynaanu kala hadlaynana waxay ahayd mucaawanada ma ahayne oo xagga dhaqaalaha cidina ma diidayso laakiin Somaliland sida ay iyaka ingiriisku og yihiin dagaalada halka ka socda arinta tan ugu badaran ee ummadda hadda haysata waa waqti jiilaal waa diraac dadku ceelashaasi ka cabbi jireen ama ha noqoto oo caado u ahaa ceelashiina waxaad moodaa hadda in laga horjoogo xoolihii ayaan helaynin dadkii inay dhulka ay ka waraabsadaan culays badan bay arintaas nagu haysaa waana u gudbinay warsugan arrimaha waa ka siinay marba wixii looga baahdo dowladda ingiriiska si gaar ah arrimaha Soomaalida aad moodaa hadda inay faraha ugu hayso nagama maqna arintaas si dhifoon baanu wixii marba loo baahdo waanu uga raadin doonaa aad iyo aad baad noo mahadsantiin